ka tirsan gobolka Shabeellaha Dhexe sidoo kalena ay dhowaan isu furi doonaan furimaha dagaalka ee Shabeellaha Dhexe iyo Hiiraan. Madaxweyne Guudlaawo oo ku sugan deegaanka Raagaceelle ayaa Falastiin Axmed Iimaan ugu horreyn ay weydiisay madaxweynaha inuu ka warbixiyo xaaladda dagaalka. Falastiin aad u mahadsan tahay. Howlgalku meel wanaagsan ayuu marayaa. Bilooyinkii lasoo dhaafayba howlgal ballaaran ayaa ka socday dalka Soomaaliya guud ahaan, gaar ahaanna Hirshabeelle. Gobolka Hiiraan wuxuu ka soo bilowday degmada Beledweyne iyo degmada Matabaan iyo degmada Maxaas iyo degmada Buuloburte ilaa Moqokori waa la isu furay. Intaas nimankii nabaddiidka ahay oo ummadda dhibaateynaya muddada dheer culeyskooda waa laga dulqaaday. Jab iyo dhibaato badanna waa lagu gaarsiiyey, hub badanna waa looga furtay, dad badanna waa ku waayey. marka laga soo tago dhinaca Hiiraan, mudane madaxweyne, muddo ayay qaadatay in Shabeellaha Dhexe howlgalku uu ka bilowdo si gobolka Hiiraanna culeyska looga yareeyo. maxaa intaas hortaagnaa, maxaase hadda idin suurtagalay? aad u mahadsan tahay. hadda gobolka Shabeellada Dhexena waa ka bilowday degmada Balcad iyo degmada Jowhar iyo degmada Raagaceeloon kala hadlaayo caawa. intaas waa isku xiran yahay. deegaamo badan ayaana laga qabsaday oo nabadiidku ay ku sugnaayeen, sida Xawaadle oo marin muhiim u ahaay isaga gudbi jireen. ciidamada dawladda iyo dadka deegaanka oo iskaashanayo ayaa ku sugan saddexdii habeenee lasoo dhaafay. laga soo bilaabo Balcad, Xawaadle iyo deegaanka Jameeco, Gaaleef, Qoor Dheere iyo Waraciise. intaas oo isku xiran ciidamada dawladda caawa gacanta ku hayay hore u joogeen nabadiidka Al-Shabaab. aadan yabaal waxaa la leeyahay waa xarunta ugu weyn ee gobolka ee Al-Shabaabku ay leeyihiin. cabir intee leegay idin jirtaa, maxaase idinkaaga qorshaysan? waa lagu socdaa. caawa ciidanku wuxuu ku iduu hayaa area biyacaddo ka tegayaa Mirtaqo iyo meesha la yiraahdo Ceelbaraf uu tegaa Ceeldheere. aadan yabaal waayay labada howlgal, midka Hiiraan ka socda iyo midka ka socdo gobolka Shabeellada Dhexe. guud ahaan ciidanka howlgalayo ee deegaanka iyo ciidanka dawladda Hirshabeelle waa isu tegi doonaa, waa iska hortegi doonaa labada furmood waqtiga ugu dhow hadii la raalli ka noqdo. sidoo kale maanta howlgalkii la sameeyey cadowga jab weynaa lagu gaarsiiyey. goob 7 qof uga dhimatay. baawur Cabdibilaana oo ciidanku ay nimankaas wateen waa la gubay. 2 baawuro baawurta raacada saaruftaana waa laga qabsaday. 3 qofna nolosha lagu qabtay oo nin weyn oo horjooga oo ku jiro oo Hebel Toorey la yiraahdo gacanta lagu hayaa. runtii ciidamada dawladda iyo dadka deegaanka guule isdaba jooga ay gaaro hayaan. ilaahay ayaa ku mahadsan. marka howlgalka yaa hadda hormuud u ah ma gobolkii madaxweynihii gobolka adoo ahaa hormuud u ah, ma ciidankii dawladda dhaxaa sameynaya, ma beelihii yaa wada? muxuu yahay hogaanka dagaalka ee hadda socda, yaa hogaaminaya? ciidanka dawladda qaybahooda kala duwanna qaybay ka yihiin. dadka deegaanka oo abaabulan oo u adkaysa waaye culeyska iyo caburinta ay ku hayaanna qaybay ka yihiin. hadda maamulkii stateka madaxdiisii oo kala duwanna qaybay ka tahay. waa duulaan lagu midaysan yahay in dadka culeyska looga kor qaado. runtii dawladda dhexna waa uga mahad celinaynaa dadaalka iyo xoogga badan iyo go'aamanka wanaagsan ee laga qaatay nimankan in la isaga dul qaado. madaxdii iyo mas-uuliyiinta kala duwaneed ee Hirshabeellana runtii uma kala hirin. dadka deegaankana waa uga mahad celinaa, hadday culamaa diinka tahay iyo hadday haweenka tahay iyo hadday dhallinyarada tahay iyo dadka xoogga dhexaa abaabulay ee naf iyo maal u huraayo siday culeyska ummadan uga kor qaadi lahaayeen. dhammaantoodna waxaan leeyahay waa mahadsantiin, ilaahayna idinka abaalmariyo. madaxweyne, waxaa jirta in dhibaatooyin ay ka jiraan deegaanadii Al-Shabaabka ay gacanta ku hayeen, oo ay ka mid tahay in dhalinyaro badan ay saameyn ku yeesheen, in waxbarashadoo kale culeysi ay ka jiraan, nolosha in culeysi ka jira, abaaraha waayadan jiray. marka laga soo tago dagaalka gobolka looga xoreynayo Al-Shabaab, maxaa qorshe ah oo xasilinta iyo dhaqan celinta dhalinyarada iyo caawimaada deegaanada idinkaaga qorshaysan? mise hadda qorshihiinu waa dagaal un? qorshahaynu waa isdaba joogaa in nimankan cadowga laga kor qaado ummadda, in deegaan kasta ee laga xoreeyana loo sameeyo xasilintii. hadday ceelashii biyaha tahay ay duugeen, waad ogtahay ceelal badan ay duugeen, dibaa loo dayactiray, dibaa loo howlgeliyey.
hadday tahay dadkii ay guryihii ka gubeen in gargaar degdega la gaarsiiyo oo laba laga dhigo mid emergency oo lagu gurmanayo dadkay guryihii ka gubeen oo hantidoodii baabi'iyeen ceelashana ka duugeen iyo mid dib u dhisid oo xasilintiya waa isdaba joogaan qorshaha koobaadna waa in cadowga laga dulqaado haddii lay raalli ka noqdo ummadda dhibaatada ku haya dagaalka hiiraan wuxuu ka socdaa mudane madaxweyne in ku dhow ama ka badan 5 bilood maxaa qaatay muddo intaasi leeg inaad dagaalkan qayb adiga ka noqdo Falastiinaanku saxo waa ka hadlay sidaad ogtahay Buulo Burtaan tagay howlgalka ugu horeeyay maxaasan tagay oo waliba qad lahaynaan muddo 3 habeen 4 maalmood joogay oo dadkii liitay aan raashin ugu qaybinay waxaan tagay meesha la yiraahdo Matabaan waxaan tagay Beledweyne howlgalka maalinna kama dhex bixin marka aan ka soco arintaas mar walibana waa ka hadli jiray waxaa jooga cadale ciidamo la sheegay iyaguna inay ku sii jeedaan gobolka dariska idinla ah ee Galgaduud oo Muqdisho ka yimid maxay yihiin iyagana qaybta ay dagaalkan ku leeyihiin aad u mahadsan tahay qaybta guud ahaan Soomaaliya cadawgan in la iska kaashado waa ka go'an tahay dadkaanuna waa dad deegaanka dadka ku abtirsado state-kan u dhashay state-ka kaleentood na u dhashay oo labadaba waa dad isleh waxa ka go'an marka inay deegaankan culayska laga kor qaado deegaanka kaleentood ee maaragtay galmudugna la tago xagga furunta ka soo socotay furunta la iska horgeeyo dadkuna waa dhalashaana waa dad wada dhashay deegaanahaana waa dad isleh labada state-ba waxa ka go'an in cadawgan la iska kaashado hadii la raalli ka noqdo waana la iska horgeynaa labada furumood culayskooduna waa dhamaayay nimankan waxay ku dhex gamba jireen dadka shacabkaana markay caburunta ka badiyeen oo dadkii ay dhibaateeyeen ay ku aruuriyaan ilmaha mulqaahe 5 jirka iyo haweenka ay baawriyo ku aruuriyeen ku gubeen bulshadu go'aan ay ka qaadatay qof kasta waxay go'aansatay inay la dagaasho ma sii muuqato sabab ay ku sii joogi karaan dalka waana laga xureynaa hadii ay raalli ka noqdo guud ahaan Soomaaliya gaar ahaanna Hirshabeelle dagaal waxa ku socdo aan loo kala herin qof yar iyo qof weyn aan loo kala herin ka socdo waana laga qaadi doonaa culayska hadii ay raalli ka noqdo waana jabay nimanka